السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا السلام قيارة دمانتي سادولانتهين meel kastoo aad kala joogtiin dunida daafeed halkaad igala socotaan waa channelka Ladan Cabdo. Fadlan dhageysto haddii aad igu cusub tahay isku day channelka inaad subscribe gareyso gambalkan oo ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo share gareeyo biidnillah. Haddii aad ila joogtay waad ku mahadsantahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan. Soo dhawow mar kale walaalkay walaashay. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan inta bugta Allah caafiyo inta caafimaadka qabta Ilaahay u zaa'idiyo kana awlaad haysan Ilaahay awlaad baari ha siiyo midka awlaad haystana awlaadiisa Allah u barakeeyo ha ka yeelo waladu saalix waalidiinteena abka Ilaahay u naxariisto meeshaan ka soo farcanay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaantood ha ku wada kulmiyo jannada muslimiinta meel kasta ay joogaan Ilaahay u dambi dhaafo aakhiri adduunba Ilaahay ha u naxariisto insha Allah soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad qisadan aan kuu soo wado aad ka bogan doonto aadna sii faafin doonto insha Allah. qisadan waxay ka dhacday Jidda ayay ka dhacday nin culimada xarameynka ka mid ah ayaa wuxuu ka waramay in nin lacag leh oo yacni nin maanta hanti leh uu doontay gabar wanaagsan ayadana sidoo kale reer fiican oo ladan ka soo jeeda diinna leh ka soo jeeda in uu doontay ninkan oo maxaa la dhahay dhaqaalaha fiican leh على كل حال gabadhii waa la siiyay oo si qurux badan ayaa guurkii loogu dhisay gabadhii ninkan lagu daray ma aha nin ku fiican cibaadadka xaqiisa yacni waa nin ku liita aad ugu liita boqolkiiba boqol waxay tiraahday waan waaniyay gabadhii yacni ninkii way waanisay si kasta ay waanisay cibaadadkii uu qaban waayay oo yacni waajibkii Ilaahay ugu talagalay uu gudan waayay gabadhii waa iskaga soo tagtay reerkooda ayay u imaatay oo gurigooda ayay iska imaatay ninkii markuu guriga ku soo laabtay wuxuu arkay xaaskiisii oo aan joogin yacni wuu u tagay inuu soo celiyo isku dayay waa ay diiday oo nin waxa waaye alla ka fog gabadhana waa gabar aad u daneynay على كل حال wuu baxay waxaa jirto meelo oo yacni sixirka lagu isticmaalo oo qofka ku diido oo kale madiideenta lagu soo xarigeliyo oo shaydaamada lagu caabudo meeshii ayuu aaday awalba ninka ma ahayn yacni meeshii ayuu tagay wuxuu ku dhahay waxaa iga maqan xaaskayga weyne diidantahay inay isoo raacdo yacni waxaan rabaa inaad isoo xarigelisaan oo gurigeeda ku soo celisaan oo ii sixirtaan camal waxay dhaheen intaas leemiyaha bas intaas anaga ku filan lacag keen yacni lacag fara badan ayay ka qaateen lacagtii wuxuu dhahay lacag leemiyaha ka walwalina lacagtii ayuu ku shubay waxay ku dhaheen kac iska bax gurigaaga aad way kuu soo laabanaysaa wuxuu dhahay haye diyaar waay wuu baxay gurigiisa ayuu aaday habeenkii ayaa baryay siduu u sugayay waxa uu imaada ma lahan subaxii ayuu gurigiisa ka soo baxay wuxuu soo aaday nimankii oo maxaa la hayay sixirkii waxaas ka shaqeynay wuxuu ku dhahay aaway waa taa aad dhahaysay way ku imaanaysaa waxay dhaheen annaga awood waan u yeelan weynay inaan gabadhaas kuu keeno waayo waxa ay akhrisato wax loo geli kara ma ahan waayo awalba gabadha waxay ahayd gabar ahludiin ah subax kasta ama habeen kastana waxay akhrisataa suuratul baqara markii lagu daaro ayaaba gurigaas wax sixir jinni balaayo aan soo gelinin ka waran qofkii akhrisanaya maalin kasto qofkaas wax shaydaan oo qabanaya maba lahanba ama sixir oo qabanaya maba lahanba wuxuu ku dhahay aniga ma awoodi in aan kuu keeno waayo gabadhan waxa ay quraanka oo ay akhrisato shaydaamadii ii shaqeynay dhan kulli way baabeen oo way gali waayeen wuxuu ku dhahay wuxuu u tilmaamay midkaas midka kale ka sii weyn ayuu u tilmaamay wuxuu ku dhahay Jidda waa laga helaya dad badan oo sixirka ka iga weyn aadso ninkii waa dhaqaajiyay asna kaas midkii ka weynaa oo magaalada dhanbo yacni Ilaahay baa weynaya dadka quraafaadka aan aaminsan ay u tagayeen ayuu u tagay wuxuu ku dhahay aniga sidii sheekadii ay uga waramay xaaskayga ayaa iga maqan waxaan rabaa inaad ii soo celisaan waxay ku dhaheen lacagta inta soo dhig anigana kuu keenina sidii kii hore uu dhahay gurigaaga iska aad baris wax iyadoo socoto way ku imaanaysaa gurigiisa ayuu iska aaday wuu seexday subaxii wax uu waayay maalin labaadii ayuu ku laabtay wuxuu ku dhahay aaway waxaad sheegayseen aniga waanba waayay gabadhii mise sidii kii hore oo kale ayaad been idinkana ii sheegaysaan waxay ku dhaheen annaga gabadhaas waan u gali weynay waayo quraanka ay akhristaa suuratul baqara ay akhrisataa gabadhaas looma gali karo shaydaamadii sidii kii hore uu dhahay wixii ciidankii aan watay oo aan u diray kulli way u gali waayeen oo maxaa la hayay way ku dhici waayeen sidaas aawadeed kuma soo celin karno gabadha marka meeshaas qisaas intaas ay nooga eg tahay laakiin
meeshas waxaan qisaan yar aan maanta usoo qaatay, waxaan usoo qaatay muhiimka ay tahay suuratul baqara. sixirka isha waxaasoo dhan waana xadiis saxiix nabiga ayaa dhahay guriga lagu aqriyo ilma soo gasho sixir ma soo gala wax soo gala ma lahan yacni waa suuratul baqara waa suurad yacni maasha allah boqolkiiba boqol yacni waa qur-aanka inkastoo wada fiican yahay laakiin suuratul baqara gurigaaga shaydaan dhan uma soo dhawaanayo. caruurta lagu aqriyaa, guryaha lagu daartaa, maqribkii iyo subaxii labada yacni cirgood maqribka salaada subax markii laga baxo ama maqribka markii laga baxaya guryaha lagu daartaa. haddaad aqrisan karto waad aqrisan kartaa, caafimaad ayaa ka helaysaa, gurigaaga wuu kugu barakoobay, xoolahaaga kugu barakoobay, wax kasta ayaa kugu barakoobay. marka ilaahay subxaana watacaala ha inoo fududeeyo suuratul baqara dhammaanteennaba qur-aanka waa idil ilaahay inoo fududeeyo laakiin muhiim waxaa ah suuratul baqara haddii aad awoodin inaad aqriso gurigaaga waa inaad ka daarataa. markastana ilaahay ha inoo toosiyo wadada toosan. ilaahay subxaana watacaalaana ha soo hanuuniyo dhammaan inta aan hanuunsanin, inta hanuunsanna ilaahay wadada xaqaha ku dilo. qisadeena intaas ayay inooga eg tahay. walaalkay walaashay haddii ay dhibaato kasta kusoo wajahdo ha isku dayin inaad aado dadka loo yaqaano quraafaadka waxyaabaha qaaciya ama sixirada madow marna ha aadin. ilaahay subxaana watacaala ha u shariig yeelin. ilaahay subxaana watacaala qofka dambiyada wuu dhaafaa laakiin ilaahay hadaad la shariig yeesho kaama dhaafayo dambigaas. ilaahay subxaana watacaala ayna soo hanuuniye dhammaanteena. shirkiga aad ayuu u xun yahay, shirkiga naftaada ka ilaalintaa ka ilaalin karto. dhammaanteena waxaan idinku dardaarmaya nafteyda iyo naftaada baanu ku dardaarmayaa inaan ilaahay mooye ilaah kale aanan caabudin, aana u xaal aan yacni u barax tireyno yacni diintiisa toosan aan caabudeyno yacni aan raacayno. ilaahay mooye ilaah kale ma jiro mana jiri doono. laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. waxaan idinka tegayaa kulankan iyo kulan dambe oo xiiso leh insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullah.